السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر دوال صاحب القناة كي هاي المعلومات وقال وحنا كل وذاك ترى قصدي أبي وحكمة بدنا يكسر راح يكون على الوضع أو كنا ولا ديجان تولا نقا صدق أول وحولا على سد الساعة قال ما كمل يا وعو كحي سد الساعة سقود دون ينصور أبيو تبنتي وجدك بسيس يا وحا ولا إنك تولا وحكمة بسلو وقعد صدي إنه نكاسي وسيو حكمة أنفع سنك تولا وحكمة بدنا wuxuu sheegay in halkii xigmadii ay u dhigmayso hal saninkii odayga ahaa uu yeelay xigmadii koowaad ee uu sheegay waxay ahayd weligaa qof waxbaa ka sheegay ninkii odayga ahaa oo yaaban ayaa halkiisa caabixiyey haddana wuxuu ku yidhi mid kale ii sheeg haddana ninkii odayga ahaa ayaa haddana loo sheegay oo lagu yidhi amaana lagu dhibtay haddaya ninkii odayga ahaa oo yaaban oo islama waxaa taqaanay ayaa maanta xoolahaagii lagaaga qaaday uu haddana ku yidhi mid saddexaadna ii sheeg iyadoo 2 saacna laga hayo markaas ayaa uu yidhi weligaa meel khayr lagu sheegayaa ka teg ninkii odayga ahaa oo yaaban ayaa soo cayra galay tuulo kadib markii galay waxa uu maqlay shaqo isugu yeeray oo ka timid dhinaca iyo boqorka shaqadan waxay ahayd in habeenkii gaar la ilaaliyo subaxina qofku isagoo meedaaya loo imanaya maadaama aan la garanay habeenkii wax dilaya shaadinihiisa toona ninkii odayga ahaa uu yeelay kadib markii habeenkii gaadhay isagoo shaqadiisa haysta ayaa waxa uu yimid 2 nin oo aad u fool kuwaas oo weydiinaya ama kulakeeya qurux badan ninkii odayga ahaa isagoo aan jawaabin ayaa waxa uu xusuustay xikmadii odaygii xikmadda badnaa uu soo siiyey ee ahay weligaa qof waxbaa ka sheegay waxaana uu sheegay inay labadooduba ay qurux badan yihiin kadib ninkii odayga ahaa sidaas ay naftiisa ku badbaadsaday subaxii ayaa iyadoo naxsh loola soo cararayo laisleeyahay odayga qaadan la arkay isagoo nool kadibna inta la saaray ayaa boqorkii loo geeyey boqorkii ayaa yaabay una qaadan waayey noolaashada ninka uu nool yahay kadib ninkii odayga ahaa ayaa uga warramay sidii wax u dhacaan iyo habeenkii labadii nin ee uu la kulmay boqorkii aad ayaa ula dhacay kadibna waa uu soo dhaweystay maalin dambe ayaa boqorkii u baxay safar kana sii tegay gurigiisa iyo hantidiisiba ninkii odayga ahaa oo gurigii iyo hantidiiba lagaga tegay ayaa gabadhii boqorku damacday balse ninkii odayga ahaa intuusan arrinkaas ka jawaabin wuxuu xasuustay xikmadii ninkii xikmadda badnaa uu siiyey ee ah weligaa amaana lagu dhiibto haddaya kadib ninkii odayga ahaa uu ka diiday arrinkaas isla gabadhii oo yaaban ayaa markii uu boqorkii soo laabtay iyadii ugu horreysay boqorkii ninkii odayga ahaa kuna tiri boqorow ninkan aad soo dhawaysanaysaa waxyaabaha uu geystay ma malayn karaysa iyada oo ku gafaysa beenna ka sheegaysa isla boqorkii ayaa dana argagax lagu noqotay maadaama uu ahaa ninkii kaliya dee uu soo dhawaysanayay bal isla boqorkii ayaa sameeyey sidii lagu yaqaanay boqoradii hore oo ahayd in qof loo diro meel heblo kadibna lagu ballamiyo askar kuwaas oo dilaya kadib ninkii odayga ahaa ayaa alaab loo dhiibuna yidhi ciidanka meel heblo jooga uge ciidankaana waxaa lagula ballamay markuu u yimaado isla saacadda qofka u yimaado inay kurka ka jaraan ninkii odayga ahaa intii uu jidka sii socday waxa uu arkay meel khayr lagu sheegay kadibna wuxuu xasuustay xikmadii ahayd meel khayr lagu sheegayo weligaa ka teg meeshii lagu sheegayay khayrka ayaa uu aaday baar ayaa uu dhegaystay culimadii iyo khudbadoodii kadib markuu meeshii khayrka lagu sheegayay uu cabaar dhegaystay waxa ishayn kari weynay gabadhii boqortaasoo degdeg u soo carartay isna ninkii odayga ahaa bal sida loo gelayaa ee saacaddii ayay meeshii isku beegtay bal islaayadii ayaa kurka laga jaray oo ninkii odayga ahaa mabuusa soo gaaray sadan waxaad ka faa'iiday matigoosan uga soo wadlay waa noo muhiim kanaalkan aad dadku cusubtay nagu sabirsa